ururada haweenka iyo dhammaan martisharafta saxaafadda ka soo qayb gashay taageerida xafladda urur-siyaasadeedka marka koowaad isbari mayno urur-siyaasadeedka ka maanta haddii aanu reer ceebinahay urur-siyaasadeedka ka waxay markhaantiino ka waxyaalaha uu naftiisa iyo jeebkiisa inoo ka dhisay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdirashiid Jibriil waxaa uu madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sidi Cabdullaahi Deni inoo hirgeliyey doorashadan maanta aynu u taaganahay oo ka maahay dad kale oo badan inay ku soo socdaan oo qof walba maanta la leeyahay waxaan kaaga baahnahay codkaaga sida gudoomiyaha hore gobolka inoo sheegay hadda ka hor iyo xilliyo horeba waxaa jiri jiray golaha deegaanka waxaa uu tali jiray gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Badhan waxaa soo xiri jiray odayaasheena dhaqanka nabadoonnada waxba layna kama ogeysiin jirin ceelbu gaar ahaan markaynu joogno cidda inagu matijicitaan ma inaan aqoon laakiin waxaa suurtageliya maanta inaad barataan cidda idinku matalaysa golaha deegaanka madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sidi Cabdullaahi Deni waxaa kale oo markaantimo doonta ah gaariga inoo shaqeeya ee xaafadaha inoo ka shaqeeya markii aynu wadna isku tashiga bulshada ee gudoomiyihii hore ee degmada ceelbu Cabdisaaq Shile uu waday waxaa la ururiyey qarashaynu jeebkana kala baxnay waxaa inoo kordhiyey oo gaarigii intii dambe inooga bixiyey oo inoo keenay dowladda uu hogaaminaya madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deni waxaa kale oo jira hadda inoo furan cisbitaalka magaalada ceelbu waxaa inoo furtay dowladda wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland wuu inoo shaqaynayaa dadkeena waa lagu daaweynayaa intaasoo dhanba waxaynu ka haynaa dowladda uu hogaaminaya madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deni dowladihii hore ee Puntland miyaynu ka haynaa la soo maray waa maya soo maaha dhammaantii markaa maanta laydin bari maayo urur-siyaasadeedka ka waxyaalo badan buu hirgeliyey gawada aanu ku soo baxayn codka bulshada ee maanta musharaxiinta kuwa hor jooga caawa iyo kuwa meelaha kale ka sharaxanaba fursadda ay haystaan aanu haysan ee ah inuu ku soo baxo codka bulshada ee uu martay inooga ahaa 66 xildhibaan codkooda inaynu weydiisto xubnaha ka soo baxayno maalintaa uu badan ku sugnaa waxaan ahay ninkii loo gartay oo Allah sharfay odayaasha iyo waxgaradka badan ay ku sharfeen inuu kelmadii odayaasha ku hadlo waxaan ka codsaday sidaan waqti dheerkii bulshada ku nool inay u waaman tahay oo sugayso oo u baahan tahay oo la'dahay inay u codadkooda manaafacaadsadaan oo rabitaankooda u codeeyaan oo diidmadooda muujinayaan iyo dalkooda iyo deegaankooda ay u sharaxan yihiin waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay guulaysta waxaynu ka mid nahay oo soo dhawaynaynaa oo u taaganahay weeye baynu u taaganahay waan soo dhawaynaynaa xusbiga maanta ka horweynaa marag inoo tarkamo oo la isku raaco oo maxaan ku sheegay meel looga soo jeensado waan soo dhawaynaynaa taana waan ku soo dhawaynaynaa tan labaad waxaan salaamayaa waxaan maryaynayaa oo soo dhawaynaya bulshadeenna ka sharaxan xusbiga ka sharaxan waa bulshadii ugu horreysay koowaad weeye waxaan leenahay guulaysta marka ugu horreysa guulaystaan leenahay anigoo ku hadlaya afka culimada sida laygu magac dhibay waxaan aad u soo dhawaynayaa urur siyaasadeedka ka kulankiisa uu ku qabsaday halka aniga oo ka tirsan culimada ceelbu kaah baanu nahay waa soo dhawaynaynaa codkaanu siinaynaa waxaanu leenahay ha soo baxo sow sidaa ma ah waxaan raacsanayaa maanta madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Sidi Cabdullaahi Deni isu soo bixi urur siyaasadeedka ee gobolka Mudug ayuu wuxuu ka jeediyey khudbad aad iyo aad u qiimo badan khudbadaas oo dhinacyo badan taabanaysay isaga oo ka qaatay dowrkiisa mas'uulnimo ee Puntland waxa uu kaga hadlay haddii aynu nahay Puntland in laynu ku soo qaaday weerarkaasoo jahooyin badan leh wax badanna isugu jira dowladda federaalka iyo dowladda bannaanka ka runtii waxaan anigu aad iyo aad ugu taageersanahay dhalinyarada reer ceelbu iyo dhalinyarada reer Badhmeed oo dad isku mid ah
dadka xusbiga ka sharaxan oo runtii dad muuqanaya anigu aan kala reebin hebel iyo hebel oranay waxaan ku bogaadinayaa sharaxoodaada ay sharaxeen xusbiguna wuxuu siiyey ururkuna wuxuu siiyey fursad ay isku sharaxaan ururkana sidaasaan ugu bogaadinaya talabaadaan ku bogaadinayaa ururka waxa weeye waxaa maanta jira culaysyo badan oo siyaasadeed madaxweynaha dowladda Puntland oo ah gudoomiyaha ururka ka waxa uu maanta ka hadlay arrimo badan arrintii ahayd xasan sheekh maxamuud oo masaajidka dhexdiisa ku qarin waayay xamse oo ka daba hadlay hadalkiisii taaliiqiyay iyo arrinta laascaanood saddexdaaba wuxuu kaga hadlay arrin si fiican oo waaqici ah laga waa arrin ina xoqaysa laascaanood iyo deegaankeenu markaynu isnahay reer Sanaag waa isku mid arrintaana wuxuu sheegay inay Puntland aanay waxba la hari doonin waxaynu runtii inagu nahay dad doon wada saaran dadka laascaanood xisbiga ka arrimaha aanu ku soo dhaweynayna arrimaha weeye waxaan isugu nimid intaas oo qof oo weliba aad aragtaan dadkii intii kale ay u suurtoobooda ama nasiib yeelahooday inay gudaha soo gashay howlka oo aduunka nasiib badateen maadaama ay fadhiyaan way u aragtaan helatay waxa la qariyo ee Soomaaliya ku maamulay gurin baa ku jira marag waxa ka ah inuu ka socday dadka intaas oo badan qofka ay soo fadhiday inta banaanka fadhida oo nasiib yeelahooda soo gashay kale isku maayo waxaan badaalinayaa marlaal maslaxada ka sida uu ka dhawaatiyay suuqa uu waxay la tahay waajib maray hadafka laga leeyahay doorashada waxay tahay waxaan ka lagu soo dhaweynayaa xisbiga ka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhalinyarada jiilka hadda soo kacaya musharixiintayada ayaan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageeraynaa waayo waxay la yimaadeen han iyo himilo aad u wanaagsan bay la yimaadeen qof walba waxa lagu soo dhaweeyaa hanka uu leeyahay iyo himiladiisa ayaa lagu soo dhaweeyaa waan soo dhaweynaynaa taageero ay noqonahay ururka ka oo runtii ah urur muuqda oo xisbi muuqda oo hadda dawladda ku dhisan tahay ah marka dhammaanteen waxaynu isugu nimi inaynu muujino inaynu taageero nahay dhiirigelino codkeena siino insha Allah ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu kor ahaado marka insha Allah aynu dhiirino codkeena ururka ka dhammaanteen intaanu joogtana idinka go'an tahay inaynu codkeena siino ururka ka xisbiga inaynu soo saarno codkeena siino idinka go'an tahay marka insha Allah